وعنا وناكسنا قيارتها وذا أنكو صاحبنا يويد الكيمبا ميلو الدوكتان وحنا دلنا وقت قايدين وحنا ذو لما أنتم بموقال كليك تكوك بتعد والبو موقال كليك جريسو وحنا الله سبحانه وتعالى أنك قبرينا أموري اللي ده إلهين وسهلوا إلهي سبحانه وتعالى أنا أولاد وبركي أنت أولاد دونك أنا إلهي أولاد باري هاسي أنت مراد كلا أنا إلهي سيد دقدقة مراد كودها وسهلوا قف والبو موقال كليك جري وحنا الله سبحانه وتعالى أول ديننا إن أمورها أولي هاي قف كاسين وإلهي سيد دقدقة وقسهلوا حاسد كوحا لنا الحاسد لا يفلح ومن شر حاسد إذا حسد هوك قصارى يكون بين يبي إن الله الكريم حاسد يو حاسد كمال يبانو ربنا ما جعل حاسدك لاك طلع ما هي كوكا وموقالك لاكتا وعن ذي سو قد من دونا حق حساسية أو كوساب سنورية أنا أو يصيدوا كلا شخصيات كلا الله حري دلكي هو جاميه على شباب شيخ مختار عبد الرحمن أبو زبير الله شاقين حبسي قال لقول لحد لي هذا بعرين تاسي ولبا شخصيات كانوا قاركود عانا oo arintaasi loo xiray muddo sanado badan ah xirnaa xaaladooda halka ay ku dambeysay ayaan idin soo gudbin doonaa hadduu Allah awood leh uu saamaxo oo xog xasaasi ah ay isir qarsoon haddaad nagu cusub tahay furo gambaleelka oo nagu soo biir haddaad saaxiib nala tahayna waad ku maadsan tahay saaxiibtinimadaada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo waliba dowladihii ka horeeyay ee Soomaaliya soo maray iyo Mareykanka oo iskaashanaya ayaa dagaal xoogan kula jira dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ah urur hubeysan isla markaana ka dagaalama Soomaaliya iyo dalal geeska Afrika dagaalyahanada al-shabaab waxay sheegeen inay hoos tagaan urur weynaha al-qaacida waxayna ka dagaalamaan Soomaaliya iyo dalal geeska Afrika ayadoona sidoo kale dagaal xoogan ay kala kulmaan dowladda federaalka ee Soomaaliya oo taageero ka helaysa ciidamada midowga Afrika ee ku sugan Soomaaliya iyo sidoo kale dalalka Mareykanka iyo waliba midowga Yurub waxaana taas ay keentay in hogaamiyaal badan oo ka tirsan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab in lagu dilo deegaano ka tirsan gudaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ay maamulaan ayadoona loo adeegsanayo dilkooda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee leedahay dowladda Mareykanka waxaa la dilay hogaamiyaal dhowr ah oo aad u tiro badan waxaana hogaamiyaashaasi ugu caansanaa hogaamiyihii dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab Sheikh Mukhtaar Cabdirahmaan Abu Zubayr oo magaciisa runta la yiraahdo jiray Axmed Cabdi aw Maxamuud Godane deegaan ahaanna ka soo jeeday magaalada Hargeysa heeb ahaanna ku abtirsanayay beesha Isaaq Carab waxaana sidoo kale hogaamiyaashii ugu caansanaa ee al-shabaab diyaaradaha Mareykanka ay ka dileen kamid ahaa معلم آذن حاشي عيرو أو كميدا أساسياشي دقاليهندا الشباب كاسو لغو دلي مقالة دوسا مريب حارون تقوبل كالقدود ودقانهان وكسو جيدي هيبهاننا ودا شي بيشا هبر قدر عير عبسية وحانا لبدن ee kamid ahaayeen xubnaha ugu sareeyay dagaalyahanada al-shabaab ee diyaaradaha Mareykanka ay ku guuleysteen inay dilaan waxaas jira tira aad u tira badan oo ka tirsanaa madax qaybeedyada dagaalyahanada al-shabaab kuwaasi oo Mareykanka diyaaradahooda ay ku dileen deegaano dhaca koonfurta Soomaaliya waxaas sidoo kale jira hogaamiyaal kale oo ka tirsan al-shabaab oo madaxooda la duldhigay lacag malaayiin ah kuwaas oo diyaaradaha Mareykanka iyo waliba sirdoonka Mareykanka ay baadigoobayaan hadda waxaan idin soo gudbin doonaa hogaamiyaal tiro badan oo ka tirsanaa al-shabaab qaabka mishinadooda loo fuliyay ee loo dilay laakiin aanu eegno wariye caan ah oo ka tirsanaa warbaahinta madaxa bannaan dabadeedna ku biiray qaybta warfaafinta dagaalyahanada al-shabaab isla markaana kamid ah xubnaha ugu firfircoon qaybta warbaahinta ama qaybta iclaamka ee dagaalyahanada al-shabaab ayaa loo xiray dilkii iyo waliba mishinkii hogaamiyihii al-shabaab Sheikh Mukhtaar Abu Zubayr ama Axmed Cabdi aw Maxamuud Godane waxaana sidoo kale lala xiray wariyahaasi shakhsiyaad kale oo lala xiriirinaya inay ku lug lahaayeen dilka hogaamiyihii al-shabaab Axmed Cabdi aw Maxamuud Godane inkastoo ila madax bannaan ay sheegayaan in shakhsigaasi wariyaha ah loo saariyay kiiska laakiin loo xiray tuhunno kale oo ku aadan in ururka uu ka goosan rabo kadib dilkii Ibrahim Meecaad Jaamac Ibrahim Afgaan ku xigeenkii hogaamiyaha al-shabaab uu dilay Abu Zubayr hogaamiyihii asiga ka sareeyay haddaba arintaasi siday wax u jiraan ayaan eegi doonaa ayadoona wariyahan uu ahaa wariyaha ugu saameynta badan wariyaasha la shaqeeya dagaalyahanada ama ka tirsan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab Jibriil Nuur Yuusuf wuxuu ka tirsanaa wariyaashii magaalada Muqdisho ka howlgali jiray gaar ahaan idaacadda Qur'aanka Kariimka uu lahaa wasiirka warfaafinta Daahir Maxamuud Gelle
waxaana jibriil uu ka shaqayn jiray ka hor midowgii maxkamadaha idaacadda qur'aanka kariimka oo ahayd idaacad diini ah baahin jirtayna barnaamijyo ku saabsan arrimaha dibadda iyo gudaha iyo weliba darsiyad diini ah waxaana jibriil uu ka mid ahaa dhalinyarada sida weyn ula dhacsan fikirka argagixisinimo asoo isla markaasi xilligaasi ka mid ahaa dadka sida weyn u buunbuuniya dagaalkii Afghanistan, Iraq iyo weliba dagaalo kale oo ka dhacaya dalalka Islaamka. xilligaasi maysan jirin midowgii maxkamadaha waxaana Jibriil Nuur Yuusuf uu qaban jiray barnaamijyo ka hadlaya wadamada Islaamka waxaana xilliyada qaar barnaamijyada uu akhrinayay Jibriil uu muujin jiray ama wuxuu sameyn jiray ama uu ilmeyn jiray sababa ku aadan qiirada dagaaladii ka dhacayay Afghanistan. laakiin kadib waxaa aasaasmay midowgii maxkamadaha waxaana Jibriil uu ka mid noqday dhalinyaradii ku biirtay maxkamadaha iyo weliba dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana si weyn Jibriil u aaminay isla markaana la dhacay qaabka wax uu u baahinayo iyo weliba xagjirnimada aadka u weyn ee Jibriil ku jirta. aadam xaashi ceerow iyo sidoo kale hogaamiyihii al-shabaab ee la dilay Axmed Cabdi aw Maxamuud Godane waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyay waa 2006 iyo ka horba uu ka mid noqday dagaalyahanada al-shabaab. aniga si rasmi ah uma ogi xilliga uu ku biiray al-shabaab ama ay isbarteen aadan ceerow iyo sidoo kale Axmed Cabdi Godane laakiin 2006 wuxuu ka mid ahaa midowgii maxkamadaha gaar ahaan garabkii al-shabaab wuxuuna sidoo kale ku jiray xubnaha sida weyn lagu kala soon yahay. Jibriil wuxuu sidoo kale wareysan jiray dhalinyarada isqarxisa ka hor intaysan isqarxinin bilooyin asoo isla markaasi lagu aamini jiray in dhalinyaradaasi uu arko muuqaal ahaan isla markaana uu wareysto. waana shakhsiga kali ah oo wareystay hogaamiyihii al-shabaab Axmed Cabdi aw Maxamuud Godane oo shabaabka ay u yaqaaneen Abu Zubayr intuu noolaa taas oo dad badan si weyn ay ula yaabeen kadib markii laga sii daayay idaacadda Al-Andalus wareysi gaar ah oo Jibriil uu la yeeshay hogaamiyihii al-shabaab Abu Zubayr ee Mareykanka ay dileen. laakiin 2015 ayaa la sheegay in Jibriil Nuur Yuusuf ay xireen dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab. in ka badan 5 sano waxaa la la'yahay warka Jibriil Nuur Yuusuf iyo halkii uu ku dambeeyay kadib markay xireen dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana Jibriil Nuur Yuusuf xilligaasi lala xiray shakhsi kale oo lagu magacaabo Cabdi Samad. ila xoogaala ayaa xaqiijinaya in Jibriil lagu eedeeyay iyo weliba Cabdi Samad oo asigana ka tirsanaa waaxda amniyaadka al-shabaab kana mid ah xubnaha ugu sareeya in ay ka dambeeyeen dilkii loo geystay hogaamiyihii al-shabaab Abu Zubayr ama Axmed Cabdi aw Maxamuud Godane. waxaana Jibriil Nuur Yuusuf iyo sidoo kale Cabdi Samad la sheegay in xilligaasi la xiray isla markaana ilaa iyo hadda aanu jirin cid warkooda haysa. waxaana xubnaha hore kaga tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab oo hadda la shaqeeya sirdoonka Soomaaliya ay ii sheegeen in Jibriil Nuur Yuusuf al-shabaabka ay ku eedeeyeen inuu ka dambeeyay dilkii hogaamiyaha al-shabaab Abu Zubayr asiga iyo sidoo kale shakhsiga kale lagu magacaabo Cabdi Samad laakiin arintaasi ay tahay been abuur isla markaana Jibriil uu ka carooday dilkii Ibrahim Meecaad Jaamac Ibrahim Afgaan iyo Macalin Burhaan iyo ceerintii la ceersaday raggii ugu sareeyay dagaalyahanada al-shabaab oo qaarkood dhanka dawladda soo galay taasna ay keentay in laga baqo Jibriil inuu ka baxsado dagaalyahanada al-shabaab kiis been oo ku aadan in Abu Zubayr uu dilayna loo saariyay. ehelada Jibriil qaarkood oo aan la xiriirin waxay sheegeen ama ay xaqiijiyeen inay tuhunsan yihiin ama ay aaminsan yihiin in Jibriil uu dhintay isla markaana ay sameeyeen dadaal xoogan oo ay ku doonayeen in warka Jibriil ay ku helaan muddada 5 sano ah ee Jibriil la yahay laakiin loo xaqiijiyay dhimashada Jibriil Nuur Yuusuf. waxaana wararka qaar ay sheegayaan in Jibriil Nuur Yuusuf wali uu xiran yahay wuxuuse ka mid ahaa xubnaha lafdhabarka u ah warbaahinta dagaalyahanada al-shabaab. taas ayaa hadda waxay muujinaysaa in shabaab meediyahooda ama warbaahintooda hoos u dhac weyn uu ku yimid kadib markii dhaxdooda tuhun uu soo kala dhex galay lafdhabarkii qaybta warbaahintana lagu eedeeyay inuu asigiiba ka dambeeyay dilkii hogaamiyaha al-shabaab. hadday sax noqoto sida amniyaadka al-shabaab ay ku eedeeyeen Jibriil Nuur Yuusuf inuu mishimay hogaamiyihii al-shabaab Abu Zubayr waxay noqonaysaa in shabaabka dhaxdooda ay kala cararaan hadiiba Jibriil oo u oynaya Afghanistan waxa ka dhacayay uu hadda Mareykanka ee shabaab ay sheegeen inuu lacag ka qaatay isla markaana uu fududeeyay dilkii hogaamiyihii saaxiibkiis ahaa ee Axmed Cabdi Maxamuud Axmed Cabdi Maxamuud Godane oo si weyn u aaminsanaa Jibriil. hadda wixii arimahan ku soo kordha waxaad ku daawan doontaan barnaamijyada soo socda hadduu Allah awood leh u saamaxo. waxaana goordhow janankeena aan bilaabi doonaa amniyaadka al-shabaab oo la dhisay 2004 waxaa soo qabtay xubno kala duwan ama naqday madaxa amniyaadka. haddaba qofkii ugu horeeyay oo lagu Yaxye
ayaan ka sheekayn doonnaa ayadoo ilaa xilligan 2020 aan ka hadli doonno qofka haysta madax ama ah madaxa amniyaadka al-shabaab reeraha ay ka soo kala jeedeen xubnaha soo qabtay xilalkan aakhirkii qaabka ayaga loo dilay iyo weliba dilalka ay fuliyeen haddaba la soco yuusuf kumogaanin barnaamijkaas oo noqon doona mid taxana oo aad u xiiso badan dhammaantiin waxaan idin leenahay ilaahay ha idin xifdiyo ilaahay umuuraha leediin ha sahlo allahuma laa sahla ila ma jacaltahu sahlan fajcal umuurana wa umuur almuslimiina kullaha sahla rabbana dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunanna min alqaasiriin ilaahu dhammaanteenba umuuraha leenahay ilaahu inoo sahlo ilaahu dhammaanteenba awlaadda inoo barakay inta awlaadoonkana ilaahu awlaad baariyaasi ilaahu inta xanuunsan xanuunka ka dulqaad oo caafimaad ugu bedel ilaahu soomaaliya meel aamin ah ka dhig ilaahu waxaan kaa magangelaynaa kuwa sharta dhibaatada iyo lugooyada ee nala damacsan wixii shar ah oo dhibaato ah oo lugooyo ah oo inoo maleegayaan ilaahu ku celi ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa gargaarkaaga iyo nasrigaaga allahuma laa sahla ila ma jacaltahu sahlan fajcal umuurana wa umuur almuslimiina kullaha sahla allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta walaa qaada ilaa qadayta walaa yanfacu daljaddi minka aljad ilaahu waxaan ku weydiisanaynaa naxariistaada waxaan kugu weydiisanaynaa magacyada wanaagsan allahu laa ilaaha illa huwa arraxmaan الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين